رئيس الوزراء حكومة فدرالك ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi hogaaminaya ee galabtay waqti gaaban soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana si weyn u soo dhaweeyay madaxda hogaaminayay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug golaha wasiirada iyo sidoo kale golaha baarlamaanka xubnahooda ku sugan Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo horeba subaxnimada hore ilaa xilliga uu soo degay ugu sugnaa garoonka si halkaas si heer sare loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa markii uu garoonka ka soo degay kadib aan la hadlin dadweynaha waxaana lagu madlay in caawa munaasabada ka dhacayso gudaha magaalada oo ra'iisul wasaaruhu ka qayb galay halkan uu ka jeedinayo khudbadiisa ku aadaneed ujeedka uu yimid deegaanada dowlad goboleedka Galmudug imaatinka ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu ku soo beegmaya xilli khilaaf cusub oo soo kala dhaxgalay madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo hore khilaaf uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka waxaana iimaanaysa xilli madaxdii sare ee muddooyinka ugu dambeysay Galmudug wada shaqeynaysa iimaanta deegaano kala duwan warqado ka soo kala saarayaan kaasoo mas'uul ah oo si gaar ah wax u cabirayo horaya waxa uu jiray khilaaf u dhaxeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyihii baarlamaanka Cali Gacal Casir waxaana taasi ay hakad gelisay howlihii kala duwanaa ee dowlad goboleedka Galmudug inkastoo ku soo biristii maamulka gobolada dhexe ee Galmudug ay sababtay in maamulka hore tilaaba aan sidaas u badnayn u qaado ayay haddana u muuqataa inuu dib ugu laabanayo khilaafkii ragaadiyay howlihii looga baahnaa in maamulku uu qabto waxaa sidoo kale maanta degmada Cadaadad tegay senatarro iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore looga doortay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay ujeedka uu yimaado inuu yahay xal u helidda xaaladda murugsan ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb